fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. maalin wanaagsan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo barnaamijkeena iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha iyo suuqa kale isugu ciyaartooga ciyaaraha maanta la ciyaarayo ciyaarihii xalay la ciyaaray iyo kuwa kale ayaanu soo qaadan doonaayo. waa maalinimo axad ah, akhbaaraadkii maanta oo xado sportiga ugu muhiimsanaa ayaanu halkan kusoo bandhigi doonaa. haddaan ku hormarnana ciyaarihii xalay ninkii Messi ahaa iyo Barcelona waa ciyaareen. Barcelona waa adkaatay oo waliba 7 dhibcood bay hadda dib ula wareegeen hogaanka ciyaaraha La Liga, walow Real Madrid ay maanta ciyaari doonto oo farqiga dhibcuhu ay hadda soo noqon doonaan oo 6 dhibcood ay imaan doonaan waa haddii Madrid ay maanta adkaato. Barcelona xalay waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid bay garaaceen, laakiin waxay Barcelona soo bandhigtay ciyaar aanu saa u adkayn oo la leeyahay aad ma inuu cimaamadnayn, maxaa yeelay wax badan gool bay ku khasaariyeen goolkii Real Valladolid. waliba Messi wax badan buu isku dayay xalay oo hadda odagu wax badan inkastuu darba jazaa dhaliyay rigooro dhaliyay haddana rigooro kale laga qabtayo goolhayii hore ee Masip ay u ciyaari jiray kooxda Barcelona da'yarteedii kamid ahaabana odagu xalay ku dhagay oo Barcelona la dagaalamay. marka Barcelona halkoo gool un bay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Real Valladolid. marka ayaantan caadi ma ahan cidda Barshay baryahan cimaamad malaha kamal daarigiinu, yacni qaab ciyaareedka Barcelona baryahan aad uma toosna. waliba Biki baa sidaa ku dhahaya oo Falfardi baa ku dhahaya ya taageerayaasha Barcelona waxaan idin sheegayaa baryahan cimaamad saas ma leedihiin, iska jira ya baryahan waad soo aruureysaan, ma aqaan waxa dhacaya. xaalku Barcelona ash ma ahan baryaha kanu halkoo gool bay xalay ku adkaadeen. jamaahirtii kasoo qayb gashay Camp Nou mayan ku riyaaqin bandhiga kooxda. Messi rigooro buu dhaliyay daqiiqadii 43aad ciyaarta uu Bikay keenay, kadibna dhamaadkii rigooro kale baa loo dhigay wana laga badbaadiyo. Messi markuu Messi rigooraha tuurayo yacni Messi rigooruhu kuma fiicna, walaayad ma la saara karay Messi markay noqoto darbajasaagu ama rigooro tuurku odagu cumad weyn kuma laha. odagu cumadku tuur ma ahan marka rigooro ay noqoto geedo malaha waxaad bisleedahay odagu kuma fiicna darbajasaagu mararka qaar. asagu markuu rigooruhu tuurayo dhankaas wuxuu ka yahay bini aadan iska caadiya, sida bay ku leeyihiin saxaafadu saakay waxay ku leeyihiin Messi dhanka rigooro tuurku waa iska bini aadan caadiya marka xaggeeda loo fiiriyo, laakiin meelaha kale dadka waa kaga tagiyay baa lagu leeyahay. marka odagu xalay waa laga badbaadiyay rigooruhu kaayo midna waa dhaliyay, halkan bay ku adkaadeen Barcelona. marka waa kaaye goolka eberka bay ku adkaadeen. marka Barcelona is adkeeya ilmaha Lyon xoog weeyaan, niman xoog weeyaan Faransiiska yaanu idin dardarin baryahan wash ma tiire base xalay 12 isku day ayuu ku tuuray goolka Valladolid. 12 shoot oo isku day buu sameeyo wax la ciyaareedkan markii ugu badnaa ciyaariyahan uu koox sida u beegsado. haddana Messi wax ka badan hal rigoormaan uu ku dhalinka kaayo. waliba Messi wuxuu noqday xilli ciyaareedkan ninkii ugu horeeyay 30 gool gaara Yurub oo dhan ciyaartooygu tartamada oo dhan. waxaanu Messi xal u gaaray rikoor kale oo ah in 11 sano isku xiga Messi uu dhalinayo wax ka badan 30 gool iyo ka badan buu dhalinaya, yacni 11 sano u dambeeyay oo kan 11 ku yahay 11 sano isku xiga ayuu Messi dhalinaya 30 gool ka badan 30 gool ka badan 30 gool ka badan kan waa saaxir. micnuhu 11 sano u dambeeyay oo kan ku jiro 11 sano xiriir adugu 30 gool ka badan buu dhalinaya. feer 2008 uu dhalay 2009 gool uu dhalay 2010 gool buu dhalay 2011 gool buu dhalay yahu 2016 gool buu dhalay. arkana kan waa laga yaab machine miya 2003 wuxuu dhalay 41 gool 2004 wuxuu dhalay 58 gool 2005 wuxuu dhalay 41 gool 2006 wuxuu dhalay 56 gool 2007 wuxuu dhalay 45 gool 2008 wuxuu dhalay 30 gool. marka waxa weeyaan waa hadda lagu jiro marka asagu 11 sano xiriir buu dhalinaya xilli ciyaareed walba wax ka badan 30 gool tartamada oo dhan. feeri xilli ciyaareed 73 gool dhaliya ku jirta Manuel ninkan xilli ciyaareedna 60 gool buu dhaliyay. waryaaqay kan waa qatar dhalis ku fiicaya. sidoo kale Gerard Piqué ayaa xalay noqday ciyaartooyga saddexaad ee daafac ugu safashada badan taariikhda La Liga. waxaanu xalay saftay kulankii 300aad oo Real kaliya waxaa ka horeeya Puyol oo saftay 392 ciyaarood iyo Miguel oo saftay 392 ciyaarood. waliba Messi kulankii shanaad isku xiga ayuu La Liga gool ku dhalinaya garoonka kooxdiisa Barcelona, laakiin xalay Brice Boateng ayaa la yaabay qaab ciyaareedkiisa waa lagu qaracmay. Barcelona iyaga duq iyo kharaab leh soo qaadata ilaahay amarkii. Barcelona suuqan galina haday ku dhahdo waa ka yaabinaysa. waa nimanka intay baxeen Boateng oo soo wareeray oo soo daalay suul ka soo qaatay ya waa ka xalay goolkii la siiyay xataa ku kor wareeray waa ku kor gabgableeyaan ku yiri xataa meel ka baxo meel ku badagay waay asii gool hayaa la tusiyay waa ka wareysi ka qaad baa leeyahay waa ku wareeriyaba. marka ninkii xalay la arkay Barcelona ma caawin karo maalintu Messi dhaawacmo ama Suarez dhaawacmo ma Boateng ba adduun inuu qabto ka sugaysaan. ninkii xalay la arkay
boytinga ahaa ninkaas adduun inuu qaban karo loox inuu idin qaban karo uma muuqda marka idinkaa suuqaad galaysaan boytingaa soo gadanaysaan shaqa ma rabtiin arsaxiix xumaa barcelona yaa arsaxiixooda xumaa ciyaarihii kale manchester city ayaa inuu 3 gool ma ahane waa 4 gool ku garaacday kooxda la yiraahdo Newport County Loristani baa gool dhaliyay 2 gool Foden baa dhaliyay Mahrezna gool buu ku imaamatay inkastoo bariya iska wararsan yahay kuwa kaasida bay sameeyeen Milan xalay waxa laga yaabo mar kale Biotic oo isaguna gool dhaliyo Milan 3 gool iyo gool bay ku garaaceen Atlanta hakan kan Haglu ayaa gool bilaabay yaani markii Milan gool laga dhaliyay Atlanta bay bareejeen ma yamaanu bareejeen kan Haglu markay Atlanta gool dhaliyeen buu Biotic uu bareejeeyo hakan uu dhaliyay mid ka labaadu Biotic saddexeeyo Milan waa kacsan tahay wiilkan Biotic khatar bad walikan Biotic khatar weeyaan ninka kanu Milan u ciyaara Biotic ciyaaryahankii ugu dambeeyay saddexdiisi ciyaar ugu horeeyay Serie A Milan gool ugu dhaliyay wuxuu ahaa Balotelli lagu tabay saddexdii waliba ninkan hadda Milan 6 gool ayuu u dhaliyay ka waran wuxuu ciyaaray 5 ciyaarood buu ciyaaray 6 gool buu si maraya Milan ka warnin kano ninka Master Ready baa leeyahay soo diyaarsan buu dhalay ciyaaryahanada qaar waxay u baahan kooxdu la qabsadaan oo ay maalmo la qabsadaan laakiin wuxuu yiri anoo diyaar baa lay dhalay habar xaliim waxay dhashay anigoo diyaarsan oo ready ah Master Ready Biotic bum 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 buu ka siinaya goolka yaani pistol Biotic weeyano pistoladu sida ka yiraahdo wareejiya marka ninka qatar weeyaan 6 gool buu si maraya Biotigo waliba 4 gool oo Serie A Milan u dhaliyay 6 gool buuna Milan hurdu u dhaliyo ninka kanu 17 gool buuna haystaa xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A ka dhaliyay Ronaldo wuxuu ka dambeeyay ma taqaana kaliya 2 goolba Ronaldo wuxuu xilli ciyaareedka Serie A ka dhaliyay 19 gool Bioticna wuxuu ka dhaliyay Serie A 17 gool wiilkan Ronaldo armubaya hey wala xanaqa dad maqashaa armuu ka dafaa inaad nidhaahdo macquul ninkan uu qatar weeyaan 17 gool buu Biotic haystaa halka kan uu haysto Ronaldo 19 gool waliba 6 gool ayuu wiilkan u dhaliyay tartamada oo dhan 2 gool Napoli uu ka dhaliyay 1 Roma 1 Cagliari 2 Atlanta waa kaabi dhanka kalena markii Milan xilli ciyaareedku markii xilligan oo kala la marayo oo 4 ciyaar la ciyaaray Milan ay haysto ugu yaraan 4 dhibcood yaani ma 42 dhibcood ugu yaraan Milan hadii xilligan oo kale ay haysato marka horyaalku la ciyaaro wax 24 ciyaarood kadib horyaalku Milan waxay qayb ka noqon jirtay kooxaha u soo baxaya 4 sare horyaalka Serie A 4 sare ku dhamaysan jirtay marka Abshirayster Milano bariyahanu Milan 4 sare xataa kuma dhamaysan Champions League kuma soo qayb galin marka waxa lagu leeyahay marka horyaalku la ciyaaro 24 kulan oo Milan ay haysto ugu yaraan 42 dhibcood Milan waxay qayb ka noqonaysaa kooxaha top 4 ka ay ugu sareeyo horyaalka Talyaaniga City-na waa kaasoo 4 tartan bay sanadkan meel fiican ka joogan hadda quarter finalka FA Cup u gudbeen maxaa la yiraahdaa Liga Cup final bay ka joogan Champions League waa ka wareeg 16 ka joogan Premier League waa ka hadda horeeyaan farqiga dhibco ku horeeya laakiin Liverpool ay ciyaar u harsan tahay marka nimankanu waxay u socdaan sanadkan 4 koob bay rajeynayaan ciyaaraha maantana Inter waxay la ciyaaraysaa kooxda Sampdoria saacadu markay tahay 8 fidnimo ee caawa dhanka kalena kooxda Real Madrid ayaa maanta waxay ciyaaraysaa duhurkii waxayna Real Madrid la ciyaari doontaa kooxda Girona waxaanu ciyaartu soo galaysaa labada duhurnimo bay ciyaartu soo galaysaa garoonka Santiago Bernabeu waa lagu ciyaarayaa marka Real iyo Girona baana ciyaaraya waana labada duhurnimo ee duhurka maanta weeyaan bal haddaan wararka maanta ugu weyn ciyaarahana fiirina Jose Mourinho waxa ayuu wuxuu leeyahay macallin weyn buu ahaa laakiin Guardiola baan taageer weyn u ahay ayaa Robin oo toddobaadka kooxdiisa Bayern Munich ay la ciyaaraysa Liverpool Champions League ayaa wax badan ka hadlay waxaanu sheegay inuu taageero weyn u ahaa tababarayaasha isagu soo maray ninka la yiraahdo Guardiola Mourinho uu ahaa nin kale oo weyn balse wuxuu ciyaartooygu la leeyahay uu seegi doonaa kulanka Liverpool sida loo malaynayo dhaawac buu qabaa Robin ninka waa ninka dhan ciyaartiisa lagu raaxaysan lahaa weeyaan reer Liverpool wallahi balaa كم بقى ليفربول نصيب ليدهن والله واد نصيب ستين هدان وآي روبن عيارين يا فنداج وسيم مغنا كورة كله كانوا آي روبن وفنداج لوه إن واب إذن دردر الهمان ملاينا يا روبن كله كانوا سيجا يا الله ملاينا يا سيدي ورا كليهن آي روبنا أرنين كاس دتك واكل الرعدينا على إسكا آموسا وروا إذن بريا إسكا آموسا ليفربول نصيب بعض يلاتين رجس كعير إسكا ناف نيكاس وحلا قبا كريه dad ba Soomaalidu waa qaana mugtamar kaliya ay Robin ma idin ka maqan war muxuu u jawaad leedihiin balaayaha isku wacan ninkaas waa balaayo cade odayna ma aha ilmana ma ahan waa dardaraya wiilasha Liverpool iska u jooga maxaa la yiraahdaa Robertson iyo Arnold iyo Campbell iyo Kano iyo wax dhan waa dardara ninkan kan kabtiisa weyn tahay kan waa saaxir ay Robin waa seega yaa ciyaartu leeyihiin wararka waxyaabaha kale ugu weynayna ciyaaraha waxa kamid ah soo gadashada Manchester gadashadeeda haddana warkeedii dib u soo noqday Manchester mar dhaweyd waxaan idin sheegay inuu doonayo
dhaxal sugaha dowlad boqortooyada sacuudi carabiga wiilka dhaxalka sugaya sacuudiga boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa doonaya baryahanba inuu manchester la wareego uu gato waxay hadda wararka leeyihiin maxamed bin salmaan maalin aad buu doonayay manchester xataa sacuudiga madaxdoodu tageen heshiis lamaan u gaarin laakiin hadda waxay wararka sheegayaan xilli ciyaareedka soo socda manchester bilowgeeda marka suuqa furan yahay ninkan baa la wareegayo markaas bana ciyaartoy waaweyn caalamka in la keeno manchester u badnaan doonta maxamed bin salmaan ayaana ku doonaya manchester inuu ku iibsado 3.8 bilyan inuu doonayo kula wareegayo waa lacag aad u maazada ninka kan waa famil wuxuu ka dhashay hoodana waxaan hantidiisa lagu qiyaasinay tahay 850 bilyan waxaas waa ka daray اسدد بقول كتب لي معقول ما نطلع هاي هانتي دي سوى نيكا كانوا وار نيكا يا مانشستر قدربوا هانتي يالو هانتي وادا فين waxa karo yaalo weeyaan marka ninka ruba manchester qadanaya waxay manchester madaxdooda leeyihiin hunguri baa galay leeyahay in iskiibsan bal laga yaaba manchester lagu saddexdii bay nimankan ku gateen lacag dhan 790 milyan bay ku gateen maanta waxay ka faa'iideyaan hadii lagu gato lacagta 2 bilyan bay ka faa'iideyaan marka ninkan waa ninka la tartami lahaa sheekh mansuur ninka la tartami lahaa weeyaan isna imaaraadka carabta lacag badan ninka ka tirsan marka ninkan maxamed bin salmaan waxay warar ku sheegayaan xilli ciyaareedka soo aadan ayuu doonayaa manchester inuu gacanta ku dhigo la wareego 3.8 bilyan ayuuna kula wareegayaayo marka manchester madaxdoodu waxay faa'iidi doonaan lacag 2.2 bilyan iyagoo 790 milyan kooxda ku iibsaday marka united saxiyo weyn ay sameeysaa suurtagal noqon doonta arab ha ku gato ciidamada turway iska aamus allah manchester warka soo socdaan ka yaabanaha aniga ونماكاس خطر وا أدوك بريان عرب هكو قطو أم روش هكو قطو أم مراكا هكو قطو عمد كتوروا حتى وحي وراكو شيئا مانشستر وحي قرشين إيسا انتو دبات الشمل اللي إساقي بسوع عيارتوغا لوكاكو سيوسو غاتان مدكود باولو ديبالا إيو عيارتوغا مورو إيكاردي أو بريان سوق إسكايالا دانكا كلانا وحا وراكو قوين مانتا عيارتوغا مستر ريديغا ميلان بيوتك وحولا يحي وحان كفر حسان هاي بندقيغا ميلان وانا اوغاويرو كوبادا حالي إن جيسكا كايمانيسو kubad saa loo soo tiro lugta jag ku siiyay ka war mid kale madaxu jag ku siiyay wuxuu yiri waan dareemay kubaddu meesha ka imaan doonto halka Paquetá Milan u ciyaaran uu leeyahay isaguna waxaan doonayaa sidii Kaká uu ka noqday Milan inaan ka noqdo taariikhdu dhigay inaan ku reebo Milan waa nin reer Brazil ninka la yiraahdo Paquetá wuxuuna doonayaa sidii Kaká oo kale inuu Milan ka noqdo warar kale ayana maanta weyn ciyaaraha waxa kamid ah ninkii Suarez ahaa oo ku wareersan yahay ilaa hadda inuu gool ka helo kooxda kubadda cagta Valladolid xali gool badan buu khasaariyay ninka kan oo lambar 9 ka ninka kan ayaa markay noqoto inuu gool dhaliyo khatar ku ah laakiin kooxda Valladolid waa kooxda u dhiman ee aanu gool ka dhalin ninka la yiraahdo Suarez 102 ciyaarood la liigu ciyaaray 104 gool buu dhaliyay 27 koox uu ka hor yimaadana gool buu ka dhaliyay laakiin marka laga reebo Valladolid oo aanu gool ka dhalin ninkan ayaa gool badan ka soo dhaliyay Real Madrid Eibar iyo Betis uu 9 gool ka soo dhaliyay تيم اسبانيول وزديد كسو دhaliyay qiichon todoba ka dhaliyay iyo kooxo kale oo la halmaala oo Atletico Madrid ay ku jirto ayay wuxuu ka dhaliyay 3 gool laakiin kooxda la yiraahdo Valladolid baana wali gool ka dhalin rekoorkiisa waa sii socon doona in kaarta kooxda ka haysata xalno kama dhalin wali waa raadinaya goolka goori kuwa ka dhaliyo ninka Ramos la yiraahdo oo maalin wad lagu haysto in si ula kac uu jaalo u qaatay kulankii Ajax Champions League ayaa hadana maanta 8 labada duurnimo laga yaabo inuu jaalo si ula kac u qaato maxay yeelay jaalo haduu qaato maanta waxa uu buuxsami doona 5 jaale hadhowna qatar kama galayo kulanka El Clasico marka ninka la yiraahdo Ramos maanta si ula kac u doonaya hadana inuu jaalo u qaato kulanka Girona ninka kabtanka Real Madrid ayaa hadda 4 jaal haysta La Liga hadii maanta uu jaalo qaada waayo oo kulanka xiga uu jaalo qaato Clasico uu seegaya marka ninka kan haduu maanta kulanka Girona jaalo qaato 5 jaalo u buuxsami doonta kadib wuxuu maqnaanayaa kulanka Levante ee todobaadka dambe laakiin wuxuu soo noqon doonaa kulanka Barcelona laakiin hadii kulanka maanta Girona uu jaalo qaada waayo ninka warar uu qaba kulanka Levante uu jaalo qaadana marka sidaas daraaddeed Clasico uu seegi doonaa marka maanta ku khasbay inuu Girona kulankeeda jaalo qaata leeyahay ninka karo arkara kan maqaadana laba dhahayo asoo qaato wad arkaysa ninkan master jaalo wala yiraahdo kaar dhan wixiisa uu kabtiisa waa Rose iyo jaalo waa daldalanaya ninka karo taariikhda Champions League ha noqoto ama La Liga ha noqoto kaarba madaxdiisa ninkan leeyahay macna cagaarka iyo guduudka فالفردي iyo BK waxay isku raaceen qaab ciyaareedka Barcelona ku ciyaarayso inaan loo qaadi karin labada maalmood ee la soo dhaafayo Barcelona baryahan waa soo aruuraysa ciidamad ma lahan ciyaartiidu waa Barcelona isku wareersano falfardi wuxuu rajeynayaa maalmaha soo socda Barcelona in dib ugu soo noqon doonto qaab ciyaareedkeeda ugu fiicnaa halka BK uu leeyahay maanu ciyaarin ciyaartii Valladolid qaab ciyaareedkeena ugu fiicnaa maanu ciyaarin buu leeyahay marka Barcelona xaalkeedu ma fiicna baryahan wargeyska la Barcelona ka soo baxa Francisco wuxuu cadeynayaa Rabiot inuu ku beeri doono xilli ciyaareedka soo aadan kooxda kubadda
cagta Barcelona ninkan iyo Barcelona hore wada heshiiyeen laakiin kooxo kale doondoonaya baryaha kan oo ay ku jiraan Manchester iyo kuwa kale laakiin waxay warar ku leeyihiin ninkan heshiis wuxuu la sii gaaray kooxda Barcelona waa Rabiot uu iyaguna ku biiri doonaa waxa kale oo iyana ugu weyn waxa majaladaha Spain ka soo baxay waxay leeyihiin qaab ciyaareedkii xalay Barcelona ma ahan mid xataa Lyon wax looga qaban karay leeyihiin saxaafadda Spain baa sida ka saaka dhaysa dhan kalena waxa la leeyahay Messi waxay leeyihiin war waa bini aadam markuu rigooruhu tuuro yani xagga Messi bini aadam caadi uu ku yahay bini aadam caadi wax ma dhaamo yani bini aadamku caadi rigooruhu waa qasaariyaan baa leeyahay yani Messi dhanka rigooruhu tuurku markay noqoto way iska bini aadam caadi ah oo dhanka kale buu dadku kaga fantastic badan yahay odagu cimaamad kuma la rigooruhu tuurku madaxan ba ka dareemay in laga qabanayo maxaa yeelay tii horeba laga qaban gaaray xalay wiilka sida u galay mataqaana Barcelona buu soo ciyaari jiray AC Milan xataa waxay isku dayaysaa in 100 milyan ku soo qaadato ciyaartooyga Gareth Bale Don Balon bana qorayso maalinta madaxda Milan waxay cadeeyeen in ay doonayaan mid kale weyn ay soo qaataan xagaaga dambe Milan shusho bax Milan waa ka caday way saagtay Milan markaan qatar bay noqonaysaa Bale bay doonayaan in 100 ku soo qaataan ka waran waxa kale oo weynayna ciyaaraha ilaa hadda bay ku kalsoontahay inay qaadan doonto ciyaartooyga lagu magacaabo Hudson Odoi Ronaldo wali wuxuu doonayaa in Juventus la keeno ciyaartooyga James Rodriguez halka Man City sanadka soo aadan bartilmaameedka ugu weyn ay ka dhigtay bedelka ciyaartooyga Fernandinho waxaanay u arkayeen inuu noqon doono ciyaartooyga Saul oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Atletico Madrid marka ciyaaruhu kuwa maanta ugu waaweynaayo haddaba Barcelona sad afar ciyaarood oo shub ayaa ku soo socota waraa jiri doone wiishka leehayro waraa jiri doone ninkii Valladolid ku wareerayo wara ya ninkii Valladolid xalay ku taas ugu kor wareerayay ee hal gool uu ku dhuftay ninkii Valladolid intaas ka maray xalay oo Valladolid la iska oo ilmo yaro buluketi ah waxa ku soo socda Barcelona afar ciyaarood oo imtixaana talaado waxay la ciyaarayaan kooxda Lyon markay talaado Lyon la ciyaaraan Sevilla bay la ciyaarayaan horyaalka toddobaadka soo aadan kadib isla toddobaadkaas waxay la ciyaarayaan Real Madrid koobka lugta labaad ee Del Rey way kula ciyaarayaan Bernabeu kadibna toddobaadka ku xiga Real bay la ciyaarayaan La Liga waa afar ciyaarood oo isku xiga oo Barcelona ay haysato inay mataqaana ay muujiso inay sanadkan u tartami karto in kale lagu kala ogaan kara yani Barcelona waxay cadeeyeen sanadkan Champions League rabaan niman Champions League rabo waa inay kuwan ka dhex baxaan marka Barcelona Lyon markay la ciyaarto Sevilla horyaalka ugu xiga kadib Real bay la ciyaarayaan Del Rey lugta labaad kadibna Real bay la ciyaarayaan haddana horyaalka afar ciyaarood oo Barcelona suba ku soo socdo bal waraa jiri doone wiishka hayiro ciyaarihii maanta waa naga inta wixii kale soo kordha barnaamijyada dambe caaw qayb ka yahay ku maqli doontaan nabadgelyo